kalfadhiga saaka ay ka soo qayb galeen mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland taasi oo lagu ansixinayay labada xubnood ee komishanka doorashooyinka qaranka ku matali doona xisbiyada mucaaradka ee ka jira Soomaaliland wadani iyo ucud taasi oo golaha wakiilada ee Soomaaliland hore u diideen ansixinta labadaasi xubnood kalfadhigaasi saaka waxa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax ansixintii ama meel marintii labadaasi xubnood waxay u dhacday sida tan عيدروس محمد عينان جوجو هرجيسة